Biyuhu waxay ka mid yihiin aasaasiyaadka nolosha koonkan aynu ku noolnahay. Boqolkiiba 71 adduunku waa biyo, laakiin boqolkiiba 3 dadka caalamku ma helaan biyo ku filan maxaa yeelay biyaha nadiifta ah ee la cabo waa ku yar yihiin marka loo fiiriyo biyaha milixda leh ee badaha, gaar ahaan wadamada Bariga Dhexe. Haddii aad isku daydo inaad biyo ka cabto badda, waxay sababayaan inaad fuuq-baxdo biyaha aad cabtay dartood, amaba waxaa dhici karta inay ku dilaan. Taasina waa sababta ayna cidina uga cabin biyo badda. Laakiinse ka waran haddii aanad haysan wax biyo oo kale ah? Waddanka Imaaraadku wuxuu ka mid yahay wadamada ugu qallalan caalamka. Waa waddan biyaha caadigu aad ugu yar yihiin, ma laha wax webi ah, sanadkii wuxuu helay roob aad u yar, waxaa dhan walba kaga hareeraysan biyaha milixda leh ee badda. Sidoo kale, boqolkiiba 90 biyaha dhulka hoostiisa waa biyo milix leh. Waxaa saxaraha ku nool dad lagu qiyaaso 10 milyan, kuwaas oo aan haysan biyo ku filan. Boqolkiiba 99 biyaha adduunka lama cabi karo maxaa yeelay waa biyo milix leh ama baraf ah. Haddaba waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay waddanka Imaaraadka Carabta mashruuc ballaadhan oo biyaha dhanaan ee badda lagu sifeynayo, kan ugu weyn caalamka. Ugu horreyn, dowladda Imaaraadku waxay samaysay biyaha keliya ee haystaan inay ururiyaan, kuwaas oo ah biyaha badda. Deedna waxay dhiseen 10 warshadood oo hal shay keliya ka shaqeynaya, taasoo ah inay biyaha badda ka sifeeyaan milixda. Waxay soo qaadaan biyaha badda, kadibna way cadaadiyaan, deetana waxaa lagu sii shubaa qalab sifeeye ah oo ka reebaya milixda. Sidaas ayayna u kala baxaan biyaha qaybta milixda leh iyo qaybta nadiifta ee la nadiifiyey. Waa borosees aad isugu dhafan oo lagu sifeeyo in ka badan 1 bilyan oo litir maalin walba. Haddaba ilaha ugu weyn ee waddanka Imaaraadku biyaha ka helo boqolkiiba 99 waa biyaha badda, waana waddanka ugu horreeya caalamka oo dhan. Waxaa kaloo ay sameeyeen qaab kale oo biyo nadiifa lagu heli karo, kaasoo ah inay diyaarado hawada u diraan ilaa jooga daruuraha, deetana xaddi aad u badan oo biyaha milixda leh jiha walba ay ku firdhiyaan, waxayna la falgalulaan daruuraha waqti kadibna waxay u soo da'aan roob ahaan. Waana hab lagu magacaabo cloud seeding. Sanadkii 2017 badankiisa waxay sameeyeen habkan cusub. Maalin walba oo ka mid ah marka ay biyahaasi roob ahaan soo da'aanna waa biyo nadiifa oo la cabi karo. Waxa ay dhiseen daaman biyaha lagu qabto inta aysan badda gaadhin, sidaas ayaana lagu isticmaalaa. Waqtigan casriga, bini'aadamku wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo waxyaabo waqtiyo hore u muuqday inayna suuragal ahayn. Mashruucanina waa mid hoos u dhigaya baahida biyo-yarida ee ka jirta saxaraha. Waxaan rajaynayaa innaga ka Soomaali ahaan intaas iyo in ka badanba inaan gaadhi karno insha Allah haddii aynu isku tashanno. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum.